Wararka naga soo gaaraya Dalka Sacuudiga ayaa ku soo waramaya in Dowlada Sacuudigu ay ku xanibtay mid ka mid ah dekedaheeda markab xoolo sida oo ka yimid Deegaanada Somaliland. Markabkaas oo maalmo ka hor ka tagey Dekeda Magaaalada BerBera isla markaasna sidee xoolo kumaan gaaraya ayaa Dowlada Sacuudigu waxay ku xanibtay Dekeda Magaalada Jidda ee wadankeeda. Wararka ay heshay warbaahinta alool.com ayaa sheegaya in Sacuudigu ay markabkaas weydiiyeen in uu shahaadada caafimaadka xoolaha uu ka wato Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo in kale, balse markabkaas ayaan wax waraaq ah ka wadan Dowlada Soomaaliya kadib markii ay Somaliland iska diiday inay Soomaaliya wax loogu daro. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda wadanka Sacuudigu soo saartay amar sheegaya in markab aan waraaq ogolaansho ah ka wadan Dowlada Soomaaliya uusan soo gali karin dekedaha xoolaha Dhowaan ayay ahayd markii dowladda wadanka Sacuudigu soo saartay amar sheegaya in markab aan waraaq ogolaansho ah ka wadan Dowlada Soomaaliya uusan soo gali karin dekedaheeda oo xoolo ku rogi karin. Hase yeeshee Somaliland ayaa go'aankaas gaashaanka u daruurtay waxa aanay Sacuudiga u sheegtay xukuumadda Somaliland in ay ka madax bannaan tahay Dowlada Federaalka Soomaaliya, waxaana intaas kadib mas'uuliyiinta Somaliland ay warbaahinta la wadaageen in ay Sacuudiga ka heshiiyeen arrintaas oo xoolaha Somaliland aan la weydiin doonin wax waraaq ah oo ay wataan Dowlada Soomaaliya, balse lama oga ilaa iyo hadda wax iska bedelay go'aankaas.